soo dhawaad saaxiibadeedii qiimaha iyo qaayaha badan fadlan haddii aad ku subtay channelka subscribe noo saar siina share gareeya aad baad u mahadsantahay. Gunners waan ogahay mucaarad badan ay leedahay, dad badan aan dhaliilo u jeediyay oo waxba ka jirin, laakiin Arsenal waxay ku jirtaa kooxooyinka dunidan ugu adag haddii shan ahayn tan koowaad tan labaatan saddexaad waa sababta koowaad anaa kuu sheegay ha iga degdegeen ila joog ilaa muuqaalkan uu ka dhamaado. tan xigta waxaan rabaa qodobka kale aniga inaan ka hadla maanta rabo taageero Arsenal dad isku sheegay oo Arsenal dhaleelay waa ka tagaa kooxdan saas way marabi intaas ay sameysay in Arsenal marabi waa ka dhaqaajina koox kala taga had now ka tag goorma imaadi horta yaa ku diiwaan gali yaa meesha kugu wacay dad badan waa arkay rag iyo dumar isugu jira muuqaalkan iga gaarsiiyay dadkaas waxay kooxooyin kale ka imaadeen hal sano ama laba sano la joogaan taageero Arsenal ma ahan dadkaas runta ku sheegay wax ay Arsenal ka taageeraan ay ku ogyiin ma lahan xitaa kuma jiro mid 10 sano Arsenal taageeray waxay ku leeyihiin Arsenal saanay sameysay war Arsenal waa soo daawan anaga Arsenal oo binooni ciyaareys taaka number 1 ku tahay waa soo daawan laakiin wax guulo ma gaareen Arsenal isku mid ma ahan Arsenal oo hadda waxa arkaa oo guulo cad sida kooxooyinka caadiga u xifaaltan laakiin Arsenal oo maanta oo dhan binooni isku baasbaasaysa kulligeed weerar wada aadays oo laga badinay waa soo arkay taas hadaa rabtid ilaahay nagu ma celi Arsenal waa soo dhaafnay marabna man u baahanin runta ku sheega anaga kooxdan rabnaa kooxdan wiligeed xitaa yuusan koob ku guuleysan inay dadka cabsi geliso saan oo cabsida oo laga cabsana Arsenal miya karkar waa lama taaban kar tanaan ka rabaa ani Arsenal anaga rabna taageerayaasha Arsenal oo dhiiga oo Arsenal waqti badan 10 sano 15 sano iyo in ka badan ba Arsenal soo taageeray Arsenal way ku heestaan laakiin dadka martida oo hadda imaade waxay u imaadeen kaliya koob inay qaadaan laakiin taageer Arsenal ma ahan Arsenal oo taaka ciyaarayso oo binoon isku dhiib aan la gaarin number 1 ah oo kubadaha ku raaxaysanaysa laakiin guulo gaareen Arsenal Wenger waa soo daawan marna laakiin had runta ku sheega ani marna Arsenal waxa rabtaa Arsenal oo baslaha ah hal gool haday ka dhalis si ay uga keentay adag tahay hal gool haday ka dhalis Arsenal way islaam laba gool haday ka dhalis waaba ka daran tahay boorsada qaada inta ka bax sana rabna anaga laakiin ragii binooni ilmaanto dhan isku dhiiba kubadda markii goosha laga dhalinay xitaa sida loo raacdo aan ka siin oo iska daawanay dadkaas arabtiin marabna anaga Arsenal marti way dadkan oo Arsenal hadda waa ka taga inta ka baxa dadku ku jir marti way waxay ka soo carareen Man United oo jajab sanadkan koob ku guuleysaneen ciyaaradii ugu dambeeyay xitaa tartan ku jireen sidoo kale Chelsea oo waxay tahay la ogeen dadkaas ka imaadeen waa ogahay dadka mucaaradkan oo hadda Arsenal shaarkooda xiran Arsenal taageerada dad Arsenal oo leey iska dhigayaan qaar waxay leeyihiin page leeyihiin dad waxay u furan yihiin TikTok sidoo kale waxay leeyihiin YouTube real social media inay ku kala kacsadaan iyo in koobab ku guuleystaan ay u imaadeen laakiin dad Arsenal taageeray oo serious ah ma ahan runta ku sheega qaar Chelsea ka imaadeen qaarna United ay ka imaadeen waa marti wax ay Arsenal taageerayaan ma lahan waxay u yimaadeen inay Premier League ku guuleystaan ama UEFA Champions League ku guuleystaan laakiin Arsenal xabad ma kooga man yaqaanan Arsenal kubadeeda ay aqoon u leeyahay ay sameyn rabteen ogeen Arsenal ma taageeraan dadkaas wax biyaal ugu soo dhisin idinkana hadda idin sheega oo mucaarada ahaydeen kooxooyinkiina ku laabta adeero dadkan ugu dhagan waa idinka naga laabta kooxooyinkiina aad dad bugley ka imaadeen dadna Women United ay ka yimaadeen dadkan hadda qaylinay waa arkaa dadkan hadda qaylinay arkay dhamaantood taageera Manchester iyo Chelsea waa meel kala xitaama ka imaan runtan ku sheega ani ku laabta xalimooyinka waa aqaana laba xalim waxay ka yimaadeen United laba xalimana waxay ka yimaadeen Chelsea halka labadan farax igana saddex waa Chelsea saddexna waa United magacyadiina marba inay meeshan ku soo xus marabi kooxooyinka wadigiina taageeraysin oo idinku ogaa waxay idinka soo wadi Arsenal idinkeena inta yaal fahmaysi nabad ku jooga ama kooxooyinkiina ka laabta waa tageena Arsenal waa isaga tageen yaa ku wacday oo markaad hore yaa ku wacday meesha yaa ku ugu wacday yaa ku wacday oo Arsenal imaaw yaa ku dha ya Arsenal
hadda A joogtaa haddii B aada waa la aadaynaa Arsenal taageeraynaa haddii C aada waa la aadaynaa C heerka saddexaad ee Premier League waa soo daawanaynaa Arsenal aan daawanaynaa intan waa ka tagaynaa Premier League wax kastoo ciyaaray ma daawanayna C ga idinku soo shadaynaa markaas C hadday Arsenal aadaa ku dhah B ka tag C hadday aad C yaa ku dhah hadday aad anaga C aan taageeraynaa C wixii ka dhacaan inta ku soo gudbinaynaa ma fahmino Arsenal aan nahay weligeena waa ahaanaynaa hadda A ku dheeshaa ku dhah hadday ka tagta B aad B ka tagta C aad C gaasaa ka daba tagayna anaga meeshaan joogna meesha Arsenal aad aano kooxa ah kubad meesha aheena ma naqaana meesha Arsenal ka dheelaysa horyaalkeena adi kooba ku qaylinaya hadda laba xilli ciyaareed waxaaba ku soo dhameysay booska labaad kooxooyinka ugu adagaa bixeen koox tartanta ayeen oo laga wada cabsado C yaa ku dhahay C hadday hadda Arsenal aada anaga C yaa daawanaa C yaana ka soo tibinaynaa C wixii ka dhac aana inta la imaanaynaa fahmino hadda iska bax ade mucaaradow iska bax haddaa Arsenal koob u joogta isaga tag haddaa Arsenal koobkan qaadi weyso waa ka taga hadda na dhaaf hadda right now na dhaaf oo nooga tag kooxda Arsenal ma taageertid martiya ahayd martinimadaada waa fahmi weysay waa kugu dulqaadnay waa kugu samirnay laakiin wax ma garata aad yaa noqoteen na dhaafa kooxooyinkiina ku laabta wiaya Ghana waan taagnaan doonaa Arsenal aan nahay shalay Arsenal aan ahayn maanta Arsenal aan nahay berina Arsenal fana ahaan doonaa forever Gunners adi haddaa koob u joogtid hadda isaga tag laakiin mid xaqiiqa idin haya wixii Arsenal la leeyahay iyo wixii Arsenal mucaarad ku ah iyo inta Arsenal u ololeynayso oo serious ka tahay oo dhiiga Gunners ku jira dhammaantooda inta dhiiga Gunners ku jira waa salaamaya salaan qaasa salaamaya waxaan ugu hambaliyaynayaa meel walba ay joogaan muuqaalkan draafka gashta Arsenal fans kuwa serious ka la hadlaya kuwa kale ma la hadlaya yani Arsenal serious fan aan la hadlaa taageerayaasha Arsenal kuwa dhabta ka ah muuqaalkan draafka gashta xilli ciyaareedkan Arsenal UEFA Champions League iyo Premier League Arsenal ku guuleysanaysa tan waa bishaaro cad iga qaata waa bishaaro cad hambaliyadana waa idin hormarinayaa Arsenal fans hambaliyada hormaris ani waa qaatay idinkana waa idin hambaliyaynayaa waxaan leeyahay hambaliyo Arsenal UEFA Champions League ugu horeeyay taariikhda hadda ay diiwaan gashatay booskeeda waa la sameeyay Emirates Stadium meesha la dhigay waa la sameeyay horyaalka Barclays Premier League basaskii ugu dabaaldegi lahayn xitaa waa diyaarsanay iska dhim ahan hadalkan ku dhahay waa serious wax lagu laabanayo ma lahan Arsenal horyaalka Premier League iyo UEFA Champions League inta way ku guuleysanaysaa labadan koob sanadkan gegada Emirates Stadium la keeni doona taageerayaasha Gunners-kana meel walba ay joogaan way u dabaaldegi doonaan inta ku xun iyagay u taalaa Arsenal waa Arsenal sanadkan waa sanadkeeda waxaa arkaa dad oo kooxooyinkan iska liito oo Premier League hadda ka ciyaara taageeray oo hal koob hata kooxooyin u tartamayn oo dadkoon 24 saac meeshan dood la taagana arkaa xitaa hal koob uma tartamayaan koobabka oo dhan way ka hareen saasay ku macsalaameeyeen anagoo UEFA Champions League sama final joogna oo laba kulan hadaa badayna oo Champions League ah oo Champions League anaga ku guuleysanayna Premier League afar kulan hadaa badayna oo anaga ku guuleysanayna ay waxay leeyihiin Arsenal wax ma qabata wax ma keenta wax ay tahay mala kooxdaad intay ku ogtahay Arsenal inta ku mashquulin Arsenal tartan ay ku jirtaa ragay hardan kula jirta Arsenal ee kooxda adiga taageertid oo shaarkeed xiran tahay oo u ololeysid intay ku ogtahay horta dad aan isku xishoon oona eebna karin oo waxay qabtaan iyo wax kale ay kala ogeen social media ku buux hebel inaan dhaha maribi magacood inaan meeshan ku soo xusana maribi adiga laakiin waa taqaana muuqaalkan gaarsii war kooxda Arsenal darajada ay joogtay iyo title-ka iyada waqtigan ku sugan tahay waa aragtay ummadoo dhan arag xitaa dunidii oo dhan ka qaylinayso Arsenal Champions League Premier League sanadkan Arsenal ku guuleysanaysa leedahay adiga idaawanayo oo Arsenal ina wax ka sheegta maalin walba u taagan kooxda u ololeysid intee joogtaa maqaamka ay ku leedahay kubadda cagta waqtigan ama casrigan ma la socotaa ma ogid
واسكا هذا الشا ددكا هدلا او هذا الشا لكن هدي قف حشوناي قف حشود كدنبي هدي اهان لهيد ارسنال waxba kama sheegin dereechada kooxdaada iyo title-ka kooxdaada hadii aad ogaan lahayd maanta inaan soo hor istaagto Arsenal wax ma ka sheegi leen laakiin dhibaatada jirta waxay tahay dadka ku maqan tahay laakiin adigu waxa tahay ma ogid kooxda u oleysid dereechada laga rabay iyo dereechada ay joogto ma ogid war lacagta Arsenal suuqa gelisay ka badan ay geliseen taageerayaashan la hadlay si fiican ay isku yaqaanaan lacagta Arsenal gelisay suuqa in ka badan ay gelinayeen afartii xilli ciyaareed la soo dhaafay afartaas xilli ciyaareed Gunners way tartamaysay oo tartamaa ahayd kooxdaada tartan iska daayay xitaa UEFA Champions League booskiis inay u tartanta ku adkaanaysa hadda waxaa leedahay waa si hadlay Arsenal aan dhaliil u jeedinay xishoodka ka tagaa dhihi karaa wax kale aan ku dhihi kara ma lahan marka dadkaas oo kala fariiqaas waxa la hadlaya taageerayaasha Arsenal oo dhiiga noocyadaas oo kala oo Arsenal waxa ka sheegay haddii adiga run inaa moodid oo Arsenal ee dhaliishay ku sheegan run u malaysid adigana iiga oo kala tahay ninka Arsenal waxa ka sheegay kooxdu u olay ama taageeraha u yahay dereechada joogta fiiri kooxdaadana dereechada joogta fiiri kadib farqiga idin dhaxay labadiina adaa ogaan doon don't worry adoo waxba ka walwinin waxna su'aal isweydiin kooxda qofka Arsenal wax ka sheegay kooxdu taageere dereechada joogta iyo maqaamka maanta ku sugan tahay fiiri adigase oo Arsenal fan oo Arsenal taageertid kooxdaada maqaamka ay joogta iyo title-ka maanta ku sugan tahay fiiri hadal miidin dhaxeeya qof kooxdaada wax ka sheegi kara miyahay ruuxaas ha imay jawaabtana adigan ka raba muuqaalkana gaarsiiya aad u mahadsantiin